la midowday Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1960 kowdii Julaay 22 sano kadib Israaciil Soomaalida koonfur iyo waqooyi waxa magaalada Burco lagaga dhawaaqay in Somaliland madax banaanideedii la soo noqotay ayaa halka wax ka dhacay saas aad fara badan iyo madaafiic anigu stuudiyaha ku jiray maan garanay waxa uu dhacaya waxaan dhameeyay hadalkan aan sheegayo inuu wax kale iyo fadqalada kale inay dhacday baan moodayay in loo damaashadayo ku dhawaaqista maan markaa maan filay haddaba su'aashu waxay tahay maxaa sababay in Somaliland dib uga noqoto midnimadii in ay leedahay baga dareenkeedu yahay baga dugsigii baarlamaanka iyo dekedii xamar baale berberadaad ku qaado dooniyaan ku leexan hadda aduuma dadkeedu duqaydii baarlamaanka ay danteena laba diiday labada kala daayay oo yaan loo deeyma la'aan kolka xidibtu shanta gees saasay ahayd Djibouti Soomaaliya Ethiopia NFD Soomaaliya iyo Somaliland shantaas oo xidibtu maxay ka tirsanayaan reer Somaliland dawladihii rayidka iyo tii militariga ee xilligii midowga soo xukumayay dawladii Soomaaliyeed deetaan 40-keegii dil baa lagu xukumay laga reebo aniga iyo saddexina ma kala u dumarkii dibadda u baxaana waa qayliyay aniga qoriga iga bixiyay aan ka ah kolku qoriga iga bixiyay aan hal sida qoriga u qabto yaan laf bay wada ninkii baa shariirta ku tuuro qoriga gacantayda galay 23 sano oo ay maanta jirta maxaa u qabsoomay Somaliland hantida ugu weyn ee Somaliland amba hantida haysto amba kaydka haysto waa laba shay mid waa nabadgelyo kow waxaad oo aan idin tafil karin oo qabsoon waxa uu qabsoomay in dunida fenomena cusub ku soo kordhiso الدنيا دولة خاصة دول أفريقيا دول أفريقيا أو شقيقية أو الصعود أو ما من كيس الدول النمو أو مركز أو أنا العالم جامعة ولا ما تقول راتن جامعة ولا هاي مين الهجر أنت وهر مروين حاجة دقالة تكسو خادو مجال عندي هالبيس تولى بهاي ما أنت نصون قلنا ما بيجرين به والخالة راسي مجال يروح سقف لبه ما أنت نديم مجال وين Somaliland hadda xagay ku socotaa marxaladda ay hadda joogta halkay uga sii dhaqaaqi doontaa waa saadaasha Somaliland iyo sanadaha soo socda Somaliland wadismaysa Somaliland waxay noqonaysaa qaran Somaliland dawladnimadeedu way ku adag tahay ilaa inta ay dawladdu aqbalaysana Somaliland way jiraysaa haweeneydu soo aqoonsanay inuu yahay waaqic jira oo ka samaysan geeska Afrika oo khuseeya nabadgelyadiisa fiditaanka AIDS-ka xakamaynta burcadbadeeda iyo argagixisada waana dhabtaasi oo dalalbeen xuduud la leenahay la'aanteen waxa la yiraahdo waxay samayn karaan ma jirto waynu aragnaa maanta xornimo iyo ictiraaf leena siiya garantii kama aha horumar ay u gaadho sababtoo ah eeg tusaale waxay nooga South Sudan oo kale xornimo ay qaateen adduunyada dhan baa ka soo shaqeysay inuu reer galbeedku joodiga geliyeen in South Sudan ay xornimadeeda hesho iyo pressurkay saareen dawladii Sudan loo jiray ama Northka way kala go'een waa kuwa maanta madax isku jiray isdilayay ee isxasuuqay isku baa Somaliland amaanka uu sugay oo yaa sugay marka waxa sugay taarka gudaha waxa sugay nidaamkii booliiska ahaa booliiskii baa joogay xakamadii baa joogay suuq baa joogtay macnaheedu institutionskii dawladda sirdoonka qaranka jira ayaa sugan tii dibadana waxa sugay ciidamada militariga kala soco Kalson TV waqtiyada soo socda barnaamij koobsanaya dhacdooyin badan bandhiga bayaan